السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دودا برنامجكيني dhacdo maanta ku saabsan xayawaanada ugu halista badan dunidan aynu ku noolnahay dhamaanteen waynu wada ognahay xayawaanada halista ah sida libaaxa shabeelka iyo xaaska iyo maska iyo xayawaano kale oo kamid ah kuwa wax ugaarsada balse ma isweydiisay xayawaanada ugu halista badan adduunkan aynu ku noolnahay muuqaalkan ayaad ku baran doontaa ee kaalay nala soco oo u diyaar garow xubinteeni dhacdo oo kamid ah barnaamijyada ka baxa channelka sahan intaan u gudbin barnaamijka fadlan subscribe sar waxay inoo tahay dhiirigelin haddana aynu bilowna barnaamijkeena maanta jeerta sida aan la socono waa xayawaan kamid ah kuwa quuta cawska balse marka uu difaacayo aaga uu joogo waa mid halis badan caana ku ah ilkihiisa dhaardheer waxa uuna la dagaalaa noolo kasta oo soo wajaha waxa uuna miisaankiisu dhan yahay 500 oo kilogram daanyeerta baabuun noocan kamid ah daanyeerta waa nooc lagu tirin karo xayawaanada halista badan iyadoo badanaa ay isdagaalaan dhexdooda sida ay u wajahaan kuwa ka soo horjeedaba yaxaaska biyaha cusboolida waa nooc kamid ah xayawaanada ugu halista badan waxaana loogu magac daray yaxaasyada biyaha cusboolida waana xamaaratada kuwa ugu qatarsan iyagoo caan ku ah gaaditaanka ay gaadayaan kuwa ay doonayaan inay ugaarsadaan waxa ayna isla simaan biyaha si ay u cunaan noolaha biyaha cabaya ee aan ka warqabin abeesada ama maska madow ee mamba abeesadan waxaa loogu magac daray mamba sababta loogu magac daray ayaa ah afkeeda oo ka madow qaybta gudaha waana abeesada ugu degdega badan caalamka iyo abeesada labaad ee ugu dheer uguna sunta badan qaaradda Afrika iyo abeesada ugu dheer uguna sunta badan caalamka oo dhan waa mid aad u cadaawad badan marka ay dareento halis waana abeese aad u qatar badan waxa ayna soo saartaa sunta ugu halista badan taasoo isla markiiba weeraraysa neerfaha sidoo kale waxaa laga dareemi karaa cadaawadeeda iyo halisteeda marka ay wax qaniinayso maxaa yeelay hal mar wax ma qaniinto ee waa ay ku celcelisaa mar kasta oo ay qaniintaba waxay ku sii daynaysaa sun halis ah taasoo aad u qatar badan waxaana la sheegaa abeesadan inay sabab u tahay dhimashada 20,000 oo qof sanadkii waxaa kaloo kamid ah xayawaanada aad u halista badan xayawaankan lagu magacaabo samakul khirish oo ah mid aad u halis badan isagoo u kala baxan noocyo kala jaan ah sida midka cad ee xajmiga weyn iyo noocyo kale oo badan iyadoo xayawaankan lagu sheego inuusan waxba cafinin sidoo kale lagu sheego inuu laayo kalluunka kale ee badda kula jira sida dolphinka waa mid aad u halis badan oo xitaa aan cafinin bini'aadamka oo ku qaado weeraro halis gelin kara naftooda gurilaha dadku waxa ay ku sheegaan xayawaankan gurilaha mid aad u naxariis badan sidoo kalena bini'aadamka si fiican ula dhaqma laakiin guriluhu ama xayawaankan haddii uu halis yar dareemo halistaasi ha ka timaado meesha ay rabto bini'aadam ama xayawaan kale waxa uu noqdaa mid aad u bahalnimo badan soona qaado weeraro lagu hoobto